waxaa hubaala in badan oo inaga mid ah inay ciyaareen geemka Subway Surfer. Geemkan oo ah cunug yar oo derbi ku buufinaya rinji kadibna uu ceersanayo askari iyo A, dabadeedna way ku soo baxayaan tareenno kana leexleexanayo marna uu ka boodayo aruursanayana coins haddii tareenku ku dhacana geemku uu dhammaanayo. sidaasi waa sida uu geemku yahay, laakiin waxaa jirta qiso xanuun badan oo ka dambaysa geemkan Subway Surfer. maxay tahay qisadaasi? wiil yar oo lagu magacaabi jiray Peter oo la noolaa hooyadiis iyo aabihiis wuxuu taalanti u lahaa wax sawirida, wuxuuna sawiri jiray sawiro cajiib oo macno weyn ku fadhiya, wuxuuna wax ku sawiri jiray rinjiga la buufiyo oo aad buuna u jeclaa in rinjiga uu ku buufiyo derbiyada si uu wax ugu sawiro. laakiin aabihiis ayaa aad uga soo horjeeday derbiyada uu wax ku sawirayo. mar walba wuxuu ahaa mid canaanta oo u diida wax sawirida, laakiin wiilkan ma ahayn mid joojiya arrintaasi sababtoo ah aad ayuu u jeclaa, wuxuuna ahaa hobbiga keliya ee uu aadka u xiisayn jiray. markuu jiray 5 sano, xaflad sanad guura oo ka dhacaysay iskoolkiisa ayaa wuxuu sameeyey inuu derbi ka mida derbiyada madrasada uu ku sawiro sawir aad u qurux badan, macno weynna ku fadhiya, isagoo isticmaalaya rinjiga la buufiyo. waxaa arkay maamulaha iskoolka, kadib waxa uu wacay aabihiis. kadib markii aabihiisi uu yimid ayuu wuxuu arkay sawirkaas oo ahaa mid aad u qurux badan, macno weynna ku fadhiya, laakiin aabihiisa waxaasoo dhan uma muuqan. kadib wuxuu canaantay wiilkii yaraa Peter kuna xanaaqay. aabihi ayaa maamulihii raali geliyey kuna yiri anaa rinji marinaya, laakiin maamulihii ayaa yiri may, sawirkan rinji lama marinayo, waa sawir aad u qurux badan waana la daynayaa. laakiin waa wiil yar oo sawirkan qof weyn oo khabiira kaliya ayaa sawiri kara. Peter wuxuu rabaa in la gacan qabto maadaama uu leeyahay taalanti cajiiba. wuxuu kaloo maamulihii ku soo daray isagoo baqaya oo aan loo ogolayn in uu wax sawiro ayuu sawirayaa sawirada cajiibka. maxaad moodaa haddii la garab qabto laguna taageero wax walba u baahan yahay, ayuu yiri maamulihii. aabihii ayaa yaabay wuuna ku farxay arrintii maamulaha. kadib wuxuu go'aan ku qaatay inuu gacan qabto wiilkiisa. qol aad u weyn ayuu u baneeyay suu wax ugu sawiro mar walba. wuxuu geeyey wiilkii yaraa Peter, wuxuu ku yiri aabo waxaad doonti ku sawir, markaa dhammaysidna ii sheeg si aan rinji kaaga mariyo. aad ayuu u farxay wiilkii yaraa. Peter marka uu ka soo baxa iskuulka wuxuu boostejada tareenka ku sugi jiray aabihiisa. maalin ayaa waxaa dhacday in inta uu sugayay aabihiis uu ku fakaro in derbi u dhowaa uu wax ku sawiro. isagoo wax ku sawiraya ayaa waxaa arkay askari, kadibna waxaa u dhawaaqay askarigii si uu u joojiyo rinjiga uu ku buufinayo derbiga. Peter waa uu baqay wuuna argagaxay, wuxuuna ka cabsaday inuu boolisku ciqaabo, wuxuuna ku cararay dhanka wadada tareenka, waxaana ku dhacay tareen. sidaas ayuuna ku dhintay Peter. aabihiis ayaa yimid goobtii uu ku sugayay Peter. askarigii ayaa arrintii u sheegay say wax u dhaceen. aad ayuuna u naxay aabihiis maadaama wiilkiisa aad u jeclaa. aabaha ayaa waxa u shaqayn jiray shirkad samaysa geemamka oo lagu magacaabi jiray Saibo. wuxuu ku fakeray si wiilkiisa mar walba loo xasuusan karo, wuxuuna keenay fikradda geemkan Subway Surfer.